sharaf heerkeedu sameeyay ayaa deegaanka Goobweyn maanta la noogu sameeyay iyadoo oo laga soo gudbay toddobaadyo mashquul ah xalfada aroos oo dhacay sidii wiilasha malqabeennada maalmihii qurxoona kadib galabta jawi kale oo qurxoon oo qada ah ayaan ku qaadanaynaa deegaanka Goobweyn ee dhaca magaalada Kismaayo dabeelaha qurxoon cagaarka dhulka iyo sidoo kale neecawda waa mid indhaheena dhammaan ay u bogeen waxaana babar socday lafta macaan qaraha biyaha iyo hilibka oo qof walbo uu calool buuxsaday maanta qadadan sharafta leh quruxda badan waxaa noo sameeyay walaalkeen gaashaanle maxamed yare taliye ku-xigeenka deegaanka Goobweyn iyo deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo oo ah shakhsi aad u qalbi wanaagsan kulanka waxaa goobjoog ahaa adeera aabihii jaceylka u waashay oo isaguna maanta halkan ka calool buuxsaday bikole iyo saaxiibkiisa Cabdirashiid iyo marwooyinkiisa Anfac iyo Kaltuumo ayaa kulanka sidoo kale ka saacabinayay oo jiibta iyo jaanta ayaa la isla wada hayay dadkii qada sharaftan quruxda badan ka soo qaybgalay ku-xigeenka deegaanka Goobweyn oo qada sharaftan quruxda badan nagu maamuusay waxa uu si gaar ah u dhiirigeliyay saaxiibada ugu gaagaaban magaalada Kismaayo ee Cabdirashiid iyo sidoo kale bikole nuur abkow oo ah shakhsiga mudnaanta iyo mahadcelinta gaarka leh waxa uu ahaa mid isaguna lafta macaanka badan dhinaciisa ka jiidayay wuxuuna qalbiga ku hayay martay sharafta quruxda badan ee maanta mas'uulkan sare uu ku maamuusay oo ka dhacday deegaanka Goobweyn ee dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo nacawda qurxoon jawiga iyo jaanta waxay ahaayeen midba qof walba in uu gooskiisa dabcan la xifaaltamo gaashaanle maxamed yare oo ah shakhsi aad u qalbi wanaagsan kana mid ah saraakiisha firfircoon ee Jubbaland ayaa ahaa shakhsiga dhiirigelinta kulankan farxadeed qada sharaftan habooneed inoogu sameeyay deegaanka Goobweyn wuxuuna si gaar ah u dhiirigeliyay laamaanaha cusub ee nolosha ku midoobay ee Anfac iyo Kaltuumo Cabdirashiid iyo bikole